maya way ka soo dhamaatay waayo adigu hadda waxa joogtaa Afrika aniguna waxaan joogaa Mareykan shalay soo anagoo Afrika jooga isma jeclayn soo ma ogeyn anigu Mareykan inuu ii xariisan yahay adiguna ku xariisan yahay balankeena soo ma ahayn qofka maqan kan kala jooga oo haray inuu gacan qabto ilaa hadda ima gacan qabanin adiga sida ay tahay waxaan ahay xaaskaaga waxaan kugu leeyahay xaq kuma weydiiyo maxaa kugu dhacay noloshaydii waan ku sugi karaa dhowr sano soo kuma dhihin maxay tahay furiinkan aad ordaysid waxa uu dhahay maya waxaan go'aan ku gaaray inaan ku furo cidna kama amar qaadanayo adiguna hadalkaaga ma dhageysanayo meesha waxa ku dhacay furiin qofna uu ila ogeyn hadana shal hadii meherkii reerkeyga aan ka qariyay maantani furiin anigu ii gooni ah ayaa lay furay waxa ay bilowday murug marka waxa jirto dadkan baala jooga ayaa waxa ogaadeen wiilkaan anigu inaan isqabno runtii Soomaalida qoys walba iyo jacayl walba waxa jira dad ku dhaxmaqan laakiin markii furiinkeyga uu dhacay anigu waxaan noqday qof farxad ka guurtay qof nolosha dhan nacday waayo wiilkii aan jeclaa aan aaminay hooyaday iyo aabahay waxayna ogeen ayaan dartiisa u soobiyay nolosheedii waxa soo food saartay murug aad u weyn oo cid walba iga dareemay inta mid ka weyn ayaa runtii hadana soo wajahday waayo reerkeygii ayaa waxa loo sheegay inuu anigu kambaalo wiil igu guursaday kadibna hadana uu i furay reerkeyga waxaan u sheegay ma leh waayo cadeyn buuxda ayaa loo geeyay waxaan aad ugu xumahay walaalkay online-ka Mareykanka ii xareeyay wuxuu go'aan ku gaaray inuu laynkayga kansalo biilkan inuu iga jarto waxaan ku dhahay walaalkayga waan ku bariyaa waxaan way dhaceen anigu waxaan ahay walaasha runtii jacayl galay qof walba oo jacayl galo ayaa awood ka badan ay kortaa anigu awood iga badan ayaa ay kortay waxaan la sheegay walaalkay waarun laakiin waxaan joogaa wadan aan cidna ka garanaynin walaal waa ku bariyaa laynka iga kansalin biilkan ha iga jaranin walaalkay telefoonka ayuu iga damiyay hooyaday iyo aabahayaad bay iga caroodeen walaalkay amarkiisa ayaa jiro hadda xaqiiqada idin sheego waan ku baahday kambaal heer waxaan gaaray gurigii aan deganaa liga dhaho orod bax iga tag waayo kira ayaa liga rabaa ma awoodo waxaan ugu dambeyn ku aan ku gaaray inaan tukaamanka shaah u iibiyo waxaan bilaabay inaan shaqaysto rafaad cusub iyo nolol cusub kale ayaan kambaala ku bilaabay isaga Mareykanka ayuu ku raaxaysanaya anigu shaah gadid niman ficiisa ah ayaan anigu shaah u iibinaa maalintii oo dhan shaah ayaan iibiyaa habeenkiina qalbi jabki ayaan gurigeyga ku noqdaa hooyaday ayaa ogaatay in kambaala gabadhayda ay ku rafaadsan tahay waayo waa hooyo wax dhashay aabahay waxay ku tiri kulay waa gabadhayni dhibkeeda una dhibaaya hadii maanta midkii ay jeclaatay ma aragtay uu sidaa u rafaadiyay anagana soo ceeb maaha in gabadhayni maanta shaah ay gado waarun oo dhahay aabe iyo hooyo waxay go'aan ku gaareen inay walaalkayga wacaan ayna u sheegaan walaalkay waxay ku dhaheen wiilkeeniyo ilmahan waa nala soo korisay awaal badan aan kaaga haynaa waxa tahay wiil baari ah hadalkeena maqlo walaasha kambaalo runtii shaah ayay ku iibisaa taa anaga ceeb noo tahay waa walaasha waxay ku dhibaataysan tahay kambaalo shaah ayay iibisaa maantay niman facaaga ayay shaah u iibisaa waxa shalay xumeeyay waa wiil aan u danqanaynin anaga Soomaha inaan u danqano hayo dhahay hooyo aniga caraa iga tambadisay laakiin walaashay inay rafaadkaas marto ma ahayn aniga hadda wacaayo waxa soo wacay walaalkaygi wuxuu dhahay walaashaydii waxaan ka xumahay ina adigu qof qalad galan noqotay anaguna qaladkii aan ka daba galnay walaashay garaali noqo waxaan rabaa inaan noloshaada ku soo noqoto waxaan rabaa inaan laynkaaga dib kugu furo waxaan rabaa inaan biilkaaga qaado waa ku bariyaa walaashaydii iyo cafi shaahani waxaan iska daa waayahan ku dhahay ilina iga soo qubatay waxaan ogaaday waalidka iyo walaalaha mar walba si walba aad u xumayso laakiin inay marna ka fogaan karin aniguna 10 ayay noqotay ugu dambeyn laynkii ayaa ii hagaagay Mareykanka ayaan aaday nolol qurux badan oo farxad ah ayaa ii bilaabatay muddo kadib waxa ay soo xiriiriyay wiilkii kambaala iga tagay ifuray ee shaah dartiisa aan u gaday waalidkayga iyo walaalahayga dartiisa ay naceen waxa uu dhahay gadaasha runtii waan rafaaday waan silcay nolol xun ayaa ii bilaabatay cid walba sheekadeyda ogne waxay dhahdaan nafsiga aad gabadhaas ka gashay ayaa ku haysta waxaan rabaa inaan noloshaada dib ugu soo noqdo waxaan rabaa qaladkayga inaan saxo waa ku bariyaa cafi waxaan ku dhahay anigu waan ku cafiyay laakiin laga ma yaabo in noloshayda dib aad ugu soo noqoto waa yareerkayga igu dirtay aniga ayaa nolosha ka dhacay niman adiga asaagaaga facaaga ah
oo shalay anoo labisan aan agmadi jiray ayaa walaal shaah ma rabtaa kambaale ku dhahayay adiga ayaa i baday middaa laakiin jacaylkii aan kuu qabay ayaad ku dheeshay kalsoonidii aan ku siiyay ayaad ku dheeshay anigu waajibaadkayga waan ka soo baxay aniga maanta fursad kuma haayo mana awoodo inaan reerkayga iyo walaalkayga aan dib inaan ula noqdo wiilkii shalay i xumeeyey ayaa bari i wanaajinayo inaan dhaho ma suurtooweyso waad mahadsan tahay jacaylka ma aha mid in laga tago loo soo noqdo jacaylka wuxuu u baahan yahay inaad xifdisato waayo jacaylka wax walba ayuu ka qiimo badan yahay anigu shalay ayaan fahansanaa jacaylka adigu laakiin maanta ayaa fahantay waxaan kuu rajaynayaa nolol qurux badan laakiin walaalkii waxaan kaala dardaarmayaa gabar walba Soomaaliyeed inaad qiimaysaad qadariso waayo gabar way kula dhalatay waana walaashaa anigu haddaan gabdhanahay ragga si fudud ayaan ku aaminaa laakiin markayna dhaawacaan si fudud kuma iloobi karno idinka sidaad noo ilowdaan qalbigiina aad dib noogu titirtaan anaga ma awoodno inaan si fudud aan qalbiga idinka titirno waxaan kaa codsanaa inaad dumarka ilaaliso waxaan jeclaystay inaan qisadan aad asxaabtaada quruxda badan la wadaagto si maaragtay gabdhaha Soomaaliyeed ee ugu cimri qaataan aadna waad u mahadsan tahay runtii waxaan ku dhahay walaashay aad u mahadsan tahay runtii inta badan dadka sida dhabta wax u jecel way rafaadaan wayna dhibtoodaan runtii laakiin waxaa jiro maalin qofka dhibaatada ku geystay ugu dambeyn inuu dhibkii ku dhici doono marka uu dareemi doono inta badan qalbiyaha daacadda ah qalbiyada jacaylka wax ka yaqaana way ku dhibtoodaan dunidan waayo qof walba oo wanaagsan way fududahay inuu cid aamino waayo isaga siduu u wanaagsan yahay ayuu u maleeyaa dadka kale inay u wanaagsan yihiin markaa ayuu dhaawac gaarayaa maanta waxaa jiro boqolaal wanaagsan qiimo badan laakiin u dhaawacan kuwa qalbiyadooda uu xun yahay xaasidnimada ay ku jirto aana garanaynin qiimaha uu leeyahay jacaylka waxay yaqaanaan kaliya sida jacaylka loo jilo waan kula qabaa qofkii shalay ku dhaawacay inaadna maanta soo ceshanin waxaa fursad u helaysaa mid wanaagsan yaqaana qiimahaaga garanaya jacaylka micnihiisa kuna xifdisanayo waayo shalay haddii uu kaa tagay bari markaad ilmo dhasho wuu kaa tagi karaa inta badanna way u badan yihiin ragga waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed inta badan gabdhaha wayna qiyaanaan waa hubaal laakiin anaga sidaan u qiyaanna ayaa ka xanuun badan mar walba intaadna gabar qiyaanin waxaad fiirisaa qofka qiyaanaysid waayo gabar way kula dhalatay hooyo way ku dhashay waadna dhali doontaa adigu maanta gabadhan ku jeejeesaayo bari mid kale jeceshahay maxay ku kala duwan yihiin nafsiga intuu ka soo bixin ha soobinin walaal waxaan ku leeyahay nolol qurux badan aan ku rajeenaya aniga asxaabteeda waa ku soo duceynayna inuu ilaahay mid wanaagsan oo qalbigaaga ilaaliyo oo ku siiyo dhammaan walaalaha qiimaha badan gabadha walaasheena u duceeya qof walba muuqaalkan daawadan waxaan ka rabaa inuu maartay wax ka faa'iido muuqaalka inaad daawato walaal ha ka tagin isku day hadaad gabar tahay inaad wax ka faa'iido bari wax kugu dhici lahay maanta aad ka faa'iido haddii aad wiil tahay inaad tan ka fijognaato isku day oo gabdhaha aan ilaalino waa maadsantiin meel walba joogtaan haddii uu yahay muuqaalkii kugu horeeyay ee aad daawato waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo una share gareyso asxaabtaada quruxda badan si ay noogu soo biiraan walaalaha nala jooga ee qiimaha badan maanta meesha aan taagannahay iyo meesha aan gaari doonno ilaahay ka sukow waan wada gaari doonnaa waana wada socon doonnaa insha Allah biidni Illaahi kariim halka naga daawanayso waa hiigsi anigu waa Subra Carab mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka